maxaad u malaynaysaa inaad dab iyo baansiin ooridaadii iyo xaaskaagii iyo zawjadaadii iyo carruurtaada hooyadood iyo tii jirkeeda ku siisay ee shahwadeeda xalaasha aad ku gudanaysay inaad gubto dembigaa intee in la eg buu yahay duruus dhowra baan rabaa inaan ka qaadano biidnillaahi caza wajal gacantaad ku bixi doonto ma taqaanid ma ilmihii aad dhashay ee 9 bilood caloosha aad ku soo siday ee aad naaskaaga u dhigtay ee baambarka ka bedelaysay ee qurratul caynka ahaa miyaa ku dili doona ma zawjkii ama zawjadii aad ragoo dhan ka dooratay zawjkii aad ragoo dhan ka dooratay ama zawjadii aad dumar oo dhan aad ka dooratay xoolo waxaad haysay aad ku bixisay miyaa ku dili doonta maxaa yeelay cadaaladii ilaahay baa dambaysa maal uusan qabiil wax taraynin oo uusan maal wax taraynin oo uusan mansib iyo darajo wax taraynin oo wiilkan anigaa dhalay iyo gabadhan anaan dhalay waxba taraynin baad cadaaladda rabbi la hor istaagi doonaaye intaan cadaaladda rabbi la hor istaagin cadaaladda dunida keen bismi illaahi raxmaan iraxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin sali allaahuma wasalama wabaaraka calaa muxammadin وعلى آله وصحابته أجمعين ما بعد أيها الأحبة في الله أحبكم في الله عاوى كلمة ذو وحيدارنتهاي دب بنزين هلغو بالبلو الله حنون بدنا فإنا لله وإنا إليه راجعون ولا شلول عبد العزيز فعل كاف وشحن شرعا كف شرعي أهان كف وشحن عقلك حقيسة كف وشحن ضميرك إيا ضدنمدا كف وشحن إنسان النمدا كف وشحن شرعك نمحو كيري نبينا صلى الله عليه وسلم وحيري أمضي إذا داود إذا صدح بانجليي مركاسو وحو الشيء ملب إيا التوبين وحكو ختمي دب مركاسو النبي صلى الله عليه وسلم يري وحان أمضي إذا أوجدك يا دب محايا لي دبكو حنون نواليهي داوعنا واليهي إلا إلي ضرورة عافمات إني كنت معهاني موقفك أي الشرع كيستاجي iska inaad marwadaadii iyo xaaskaagii iyo insaan iyo bini aadam inaad dab qabatiisa iyo baasiin xaggaba dhige nabigeena sallallahu alayhi wa alihi wasallam waxaa jiray waqtigiisii 2 nin oo nabiga cayn jiray alayhi salatu wassalaam heesa iyo gabayo ku soo cayn jiray markaasuu nabigu amar ku bixiyay labadan nin haday la arko in la gubo saxaabadii markaa aadaysay oo uu ku yiri hadaad aragtaan hebel iyo hebel oo la kulantaan guba ayaa markay baxayeen wuxuu ku yiri nabigu sallallahu alayhi wasallam maxaan idin iri markii dhaweyd sida iyo sida markaasuu nabigu yiri sallallahu alayhi wa alihi wasallam maya wa inna an-nara la yu'adhibu biha illa Allah naarta ciidan Allah ahin waxba kuma cadaabtee haddaad labadan aragtaan dila ayuu nabigu yiri sallallahu alayhi wasallam bal qisadan la yaab kale dhageyso ee Abdullah ibn Mas'ud loo soo guurinayo radiyallahu ta'ala anhu arda xil anagoo dhalin yara ah oo shimbire iyo ku ciyaarayna oo nabigu alayhi salatu wasalam oo dhashi aan ka qaadanay oo naga canaananayo ayaa wuxuu arkay quraanjo magaalo dhan oo quraanjo ahido aan gubnay markaasuu nabigu yiri sallallahu alayhi wasallam man harraqa hadhihi wariya gubay buu yiri nabigu sallallahu alayhi wa alihi wasallam ya gubay markaasaa nidhi annaga gubnay dhageysan nabigu sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri innahu la yanbaghi an yu'adhiba bin-nar illa rabbun nar ma habboona buu yiri naari inuu cid uun ay isticmaasho ay wax ku cadaabto illa rabbigi naarta abuuray mooyeen subhanahu wa ta'ala وقصة عجائب بدن الله ياب لويان نبينا صلى الله عليه وسلم سريع أيومال أدري سريع وعلى هذا عيدا كأس النبي محمد السعودي عليه الصلاة والسلام وعيدا ير مركو النبي قال السعودي عيدا ويا هنا الجيش بالدها ولما هذا السيرة ده سأوك لغد المهم سريع أيو النبي قد دري صلاة عيدا عن بنين نبو مدح وقد لكي وحيد نيكا هلا مقلو أو هلا أطيعه markii dhaxda la sii maray ninkii baa cadhooday xaaba ii soo gura wiir dabna iigu shida dabkii markuu ololkii kacay ayuu yiri hal la galo
saxaabadii qaar baa damcay inay galaan waayo nabiga yiri ninkan hala maqlo waxa la isku maqlay laakiin waa macruuf waxa la isku maqlay waa wuxuu sharcigu ogol yahay wuxuu sharcigu ogolay la isku maqlo la taa'ata li makhluuqin fi ma'siyati al-khaliq qaar baa yiri maya ma galayno sabab fiiri sababka ajaa'ibnimadiis waxay dhahay nabigaba waxaan u rumaynay sallallahu alayhi wasallam oo aanu quraysh oga soo tagnay iyo aslaamtoodii waxaan nabi maxamed u rumaynay naarka carab ahayd inaan jahannamo ka badbaadno ma adduunyadaanu naar ku galayna wallahi inaan galaynin markii la soo noqday oo nabi maxamed loo sheegay sallallahu alayhi wa alihi wasallam wuxuu yiri dhageyso law dakhaluha ma kharaju minha ila yawm alqiyamah kuwa yiri waan galayna damcay inay galaan haday gali lahaayeen ila qiyaamay ku jiri lahaayeen at-ta'atu fil ma'ruf waxa la isku ateecay waa wanaaga waxaan rabnaa marka inaan dhaaro horta naarta sidaas uu oga digay nabigu sallallahu alayhi wasallam maxadu malaynaysa ayado fi surati an-nisaa law yiri wa man yaqtul mu'mina muta'ammidan fajazaahu jahannamu khalidan fiha wa ghadiba Allahu alayhi wa la'anahu wa 'adda lahu 'adaban 'azima qof muslima oo mu'mina in kaslo dilo dhiigiisu xaraam ka yahay shariicadu meel adag bay ka ratibtay maxaad u balaynaysaa inaad dab iyo baanziin ooridaadii iyo xaaskaagii iyo zawjadaadii iyo caruurtaada hooyadood iyo tii jirkaaga ku siisay ee shahwadaada xalaasha aad ku gudanaysay inaad gubto dembiga intee in la eg buu yahay duruus dhowra baan rabaa inaan ka qaadano bidillaahi azza wa jalla darsiga koobaad oo aniga ina gabadha tagtay ma soo laabanayse laakiin duruusta aanu ka qaadanayno aniga iyo qof kasto dhageysanayo masiirkeenu ma naqaano meesha ku dambeyn doono gacantaad ku bixi doonto ma taqaanid ma ilmihi aad dhashay ee 9 bilood caloosha aad ku soo siday ee aad naaskaaga u dhigtay ee baambarka ka bedelaysay ee qurratul aynka ahaa miyaa ku dili doona ma zawjkii ama zawjadii aad ragoo dhan ka dooratay zawjkii aad ragoo dhan ka dooratay ama zawjadii aad dumar oo dhan aad ka dooratay xoolo waxaad haysay aad ku bixisay miyaa ku dili doonta لا تدري انت الصومالي بكدعين او واد اوغتيين كسمايه ما فوغين او متغنا غرو ما فوغين او حمر ما فوغين او ميلو بدن بكدعيسا غارس ما فوغين انت صوميلود بكدعدا اذا درسيغانو كقادانينو war waxa qayb ah oo qarsoon baanu ku dhaxnoolahay naftana way ka bixi doontaa la maxala markayna mar walba diyaar garowno oo geeri u diyaar garowno meel ay nagaga imaan doonto ma naqaane ayadana waa darsiga aanu ka qaadanayno darsiga kale oo muhiimka ah on aflabadii waliba dhawaaqayo Soomaaliya aan leeyahay العدالة war umadani xoolo ma deeqaan war umadani dhul ma deeqo war umadani kalluunka badda ku jira ma deeqo xayawaanka banaanka daaqaya ma deeqo war umadani mansib iyo wasiirnimo iyo ra'iisul wasaarenimo iyo madaxweyne iyo kursi ma deeqo war umadu kursi ma deeqo umadani waxa deeqo waa cadaaladii oo ilaahay quraankiisa ku balbalaariyay iyo sunnada nabi sallallahu alayhi wasallam in anagu god kamadow aan ku tuurnay waa cadaaladii Umar ibn Khattab oo geedka quraca hooskiisa oo kaliisa barkanaawi hurdadu rabana uu seexanayay waa cadaaladu nabiga sallallahu alayhi wasallam haday gabadhayda Faatima oo dabid ibn wali jiray waa jirkay qayb kamida haday xadi lahayd buu yiri gacantan goyn laha meel ka dambaysa lama arko war Soomaaliyay war waxa maqan waa cadaalad si khaasa waxa u leh hay'adka arinta ku magacaaban ee kitaabka quraanka umada ugu dhaartay wa ilay had iyo habeen u istaagaan siday cadaalada u xaqiijin lahaayeen intaynan ilaahay hor istaagin intaynan rabbi hor istaagin wa ilay xaqiijiyaan inta awoodooda ah inta tabartooda ah inta aqoontooda ah in ay cadaaladaasi ay umada soo hor istaajiyaan العداله قصاص تصير هذا بانك كنول ولكم في القصاص حياه قصاص ونولل
هرقلباتك أمضى كدادعي أفكار أنصح هين قصاصتو كي وحد له إيا كي زينيسته إيا كي وحضا شريعة وحي ميل أمرنا يسيه مثل قطاع الطريق طرقة ودادا فريسانيا waxay shareecadu xuduud ooga jiraysay dadka la badbaadinaya war Soomaaliya inta afaan kitaabka quraanka inoogu taala oon aqrisano oon masaajidada ku aqrisano aan ku dhaqanno tadbiiqino wallahi waan kala nabad galeynaa cid sa u fiirin kartaa lama arko cid kasta oo wax geysata mansibkay doonaan darajaday doonaan ha joogeene waxa laga doonayaa inay cadaaladda ay sor keenaan maxaa yeelay cadaaladda ilaahay baa dambaysa maal uusan qabiil wax taraynin oo uusan maal wax taraynin oo uusan mansib iyo darajo wax taraynin oo wiilkan anigaa dhalay iyo gabadhan anaan dhalay waxba taraynin baad cadaaladda rabbi la hor istaagi doonaaye intaan cadaaladda rabbi la hor istaagin cadaaladda dunida keen intaasna waa waxaan ku leeyahay cid kastoo wax geysata reerka waan u ducaynaynaa waxaan leenahay gabadha Allah u naxariisto subhanahu wa ta'ala waxaan ugu ducaynayaa duca khaasa waa galab jumca ah waxaan ugu ducaynayaa on leeyahay rabbiyow dunida ayadoo joogta ayaad cadaab iyo dab dhadhan siisay yaa rabbal caalamiin ki aakhiraha ugu darine jannatul firdaws abaalkeeda ka dhig jannatul firdaws rabbiyow abaalkeeda ka dhig صبر يسلوان الله كسي عدة كبحضي وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته kusoo dhawow dugsiga Maka online ee barashada Qur'aanka iyo axaadiista Nabiga adoo jooga gurigaaga ama goobtaada ganacsi waxa kugu diyaara macallimiin khibrad iyo waayo aragnimo u leh barista Qur'aanka iyo culumta shareecada hadda waxaad ku baran doontaa dugsiga barashada Qur'aanka iyo tajwiidka barashada higaada barashada luqadda Carabiga barashada tafsiirka barashada axaadiista Nabiga isqoristu way socotaa waxaana la qaadanayaa arday cusub fadlan hore u gaadh nagala soo xidhiidh lambarada shaashada kaga muuqda